waan ogahay inay adag tahay markaad aragto adigoo oo result fiican aadan helin laakiin assignmentigaas aad qoraysay ku dhawaad iska dheh 3 isbuuc laakiin resultiga ee macluumaadka ku siisay kumaadan qancin wuxuu ku noqday resulti aadan ka filnayn adna aad u daashay adigoo waliba research badan sameysay laakiin resultiga aad heshay kuma aadan qancin maanta laakiin Vediogaan waxaan rabaa inaan idinku wadaago sida aniga essayga u qoro adna hadda taraacdo tipskaas aniga maanta aan kula wadaago aad heli doontid result aad ku qanacdid waqti badan aad ku dhimanaynin sidii waqtiga hore ugu dhimaysay laakiin result fiican aad heli doonto insha Allah marka Vediogaan intaas ayaan idinku talgalay Vedioga maanta ku soo dhawaada magacaygu waa Ali waxaan ahay arday dhigta jaamacadda Nida faculty genetic engineering maanta Vediogaan waxaan rabaa inaan idinku wadaago sida aad u qori kartid good essay yani good ma dhahayni let's say like excellent aadna ku heli kartid result fiican maanta aniga waxaan idinku wadaagaa si aniga shakhsi ahaan shakhsiyadeed aan u qoro iyo adna hadda tibiskaas aan maan kul soo wadaag hadda raacdo adna aad heli doonto excellent essay waan ogahay way adag tahay inaad qortid essay fiican essaygan waqti badan ku qaadana inaad research samaysid u dhawaan adi week waraadinaysa wixii qor lahayd wax ma laga dhahay dad kale wax ma ka sheegin adigoo raadinaya markaad qortid essaygaas sidee macluumaad ugu heli kartaa dadkan saad ugu soo jiidan kartaa inay essayga ka helaan maanta way idinku wadaaga markaad qoraysid waxa u baahan tahay 3 waxyaabood midka koowaad introduction wax ugu muhiimsan waxa waa introduction haddaad si fiican aad u qortid waan huwa macluumaadda iyo qof walba akhriga essayga inuu ka heli doono midka saddexaad aan ka hadli doono asigana wuxuu noqon doonaa midalka yani maxalla caloosha dhan yani qaybta hoosintii la gaarin caloosha yani iyo midkaas waxaad ku soo gudbin doontii wax kale waa idin sheegaa iyo midka ugu dambeeya conclusionka waxa ugu muhiimsan waxa way introductionka hadsalan jaamacadda marka dhiganaysa macluumaad waxay ka controleysa introductionka iyo conclusionka labada sida introductionka haduu soo jiito macluumaadda direct way iska siinaysa laakiin hadda sax waxyaabaha kan laga baahan yahay marka mid ayaan idinku sharxi doonaa anigoo ka bilaabay introductionka iyo conclusionka oo ugu dambeeya iyo midka kale caloosha oo waxaad ku qori lahayd marka midka koowaad introductionka saad u qoraysid introductionka waxaa saa u qoraysan ku sheega marka ani shakhsi ahaan saa u isticmaal introductionka inta idinka soo muujiyaa macquul ah saa u qoray introductionka ku waxaa fiirinaysa waxyaabaha ugu muhiimsan سان موضوع adiga wax ku qoristaan ani موضوع ku saabsan Soomaali amal wax ku qoro Soomaali amal waxa wax ku qoro yani Muqdisho amal wax qoro leeyahay Muqdisho saan kadib hada economigeeda ka hadla kadib yani sida wax loo qaban karo waxa adiga yani furaha iyo xogaa wax yaris oo wax yar ku sharxaysid iyo conclusion sameynaysa introduction ka dhaxaysta conclusion ku sameeysid aad ay u muhiimsan tahay salaana hada Muqdisho saan ka jirsan saan dhaqaalaheeda saan way marka dhaqaalaha Muqdisho waxa loo horin marin karaa ina wax ka sheegtid waxyaabo qaar sheegis marka introduction ka hada si fiican u qortid waliba qaybta hore introduction ka afka hore aad ay marka qofka akhrisanaya xitaa markino aad u soo jiidana qofkaas uu ka helay yani waaw markaas qofku waxa kana akhrina laakiin qofku ku akhrina introduction ka haduusan ka helin wax kale uma gudbay waa runtan ku sheega tan ogow haduu qofka introduction ka helin hasugin inuu conclusion ka akhriyo introduction ka kama helin ana had salaada ay keento warqad ku introduction ka akhriyo introduction maxaa way saan waxay soo dhaay Muqdisho qurux waaye Muqdisho waa shidan tahay Muqdisho bala waaye saan waaye أنا يعني مركا introduction wax ugu muhiimsan hadda qaybta labaad ay idin tusi doona qaybta labaad waxa way qaybta maxaa lahaa middle-ka ama hadda af Soomaali idinku sheegay caloosh yani qaybta dhexe marka qaybta dhexe aad iyo aad u muhiimsan salaan hadii jaamacad dhigatid macallimiinta meesh badi ka control hadda ku sheega hadda jaamacad dhigatid oo aad aragtay experience aw leedahay commentiga ay ugu soo wada anaga hadda salaan way ugu soo wadaagi kartaa dhoo anaga hadda jaamacadda marka dhigano meesh u badi macallimiinta control waxa way introduction iyo conclusion marka conclusion maxaad ku qoraysaa iyadana muhiim way conclusion waxa ku qoray mowduuc adiga aad ka hadlaysid salaan mowduucaas ani Muqdisho ka hadlaa wax walba Muqdisho ku saabsan inaan ka hadlo Muqdisho sana loo nool yahay Muqdisho saan waaye Muqdisho kana laga cunaa Muqdisho saas waaye Muqdisho kan waaye Muqdisho wax walba oo ku saabsan aad Muqdisho ka raadisay in laga helo yani middle-ka yani ama caloosha dhexdeeda meeshaas in laga dhaxelo marka kan aad iyo aad muhiimsan inta ugu soo gudbayna qaybta ugu muhiimsan ee soo gudbi doona qaybtaas maxay ma taqaaniin qaybtaas waxa way conclusionka maxaa laga baahan yahay conclusionka asigana sida oo caloosha kale conclusionka yani soonan waxa ka soo hadashay Muqdisho economigeeda
economiga muqdisho saan waaye dadka saan u nool yihiin lacagtaas ay isticmaalaan EVC plus ay isticmaalaan EVC plus muxuu yahay EVC plus muxuu yahay amal inta ku sharxaysa kan oo middle-ka ku sharxaysa marka intii ma EVC plus si dadka loo xalin karaa lacagtii Soomaaliga caadiga shilling si u isticmaali karaan dadka kaas u sharxaysa sanadii steps kaas la raaco sanadii la sameeyo dadkii dukaamada waaweynka ganacsatada ay dhiirigeliyaan dadka ganacsatada yar yar si u soo koraan lacagtii loo isticmaalo waa ogahay aad aan ugu xumahay in lacagteena Soomaaliya qiimaheeda hoos u dhaco salaan يعني dad badan ma isticmaalo adduunka kaliya ka isticmaal xitaa kaliya hadii loo xataa dad anaga mid isticmaalina jiro insha Allah laakiin way ka fiicnaan doontaa marka ha u gudubna mowduucin conclusion yani waxa ku qoraysa wax walba muqdisho ku saabsan sana muqdisho saan way marka dhaad muqdisho wax walba oo qof maanta muqdisho u raadiyo oo ka ogaan karo in aad meesha ku soo dartid conclusion ka aad u muhiimsan yahay waxa idin sheegay wax ugu muhiimsan idin sheegay introduction koow iyo conclusion kan dhexda waxaad rabtay oo qor kartaa wax walba research marka mid ugu muhiimsan ay idin wada reference samee salaan hadal meel ka soo kubiyay qof aday ka soo qaad aabahayga wuxuu qoray meel buu wax dhigay salaan wax buu qoray hada ogtiin aabahayga xataa asigan wax buu qoraa marka salaan wax buu qoray qofkaas waxa dhahay saan ajir saan anigoo ka soo tixraacayo qof ina xustid qasab waa sheegtid reference assisi iyo wax ka digtoonaysay maxaa weeye copyright jaamacada ku sameeyay jaamacada copyright ku sameeyay wax xun yani la kulantida macquul macallimiinta qaar copyright way fiirnaa boqolkii haduu 20 ka bato copyright meesha wax kuma haysid hada ku sheega marwab isku day inaad isticmaashid ereyadaada marka isticmaalaysid mid ugu muhiimsan aad ka taxadiraysid aan rabo inaan ku soo gabagabay waxa weeye language markaan dhahay maxaa u jeedaa sana inaadan isticmaalin erey xaafadeed inaadan ku soo darin erey xaafadeed iska ilaali sanahan inaad dhahdid isticmaashid you iyo we iyo waxyaabaas inaadan isticmaal xataa sanahan waxa rabtaa inaad sheegtid meeshaas ayaa wax laga sameeyay saas ayaa loo sameeyay waxa dhayso sana China research laga sameeyay researchgaas wuxuu sheegayaa sidaan inaad dhahdid يعني language يعني adina isticmaal academic language na isticmaashid maanta videogan intaas idinku soo gabagabeena haddaad ka heshay videoga inaad like sarta ilaawin hadda channelka cusub tahay subscribe na sarta ilaawin videoga iska inta kulmeen waxay idinka mar walba xaajacaysanay salaam